guddiga ra'iisul wasaare Roble uu saaray xaqiijinta xubnaha guddiga doorashooyinka cabashada laga qabay oo shaaciyay liiska xubno guddiga laga saaray Kenya oo faahfaahin ka bixisay howlgal ciidankeedii ay ku dileen xubno ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay gudaha wadankaasi taliska ciidamada AMISOM oo sheegay in ay baarayaan duqeymaha diyaaradaha Kenya ay ka geystaan qaybo ka mid ah gobolka Gedo guddiga doorashooyinka Soomaaliland wakiilada iyo deegaanka ee ka dhacay magaalada Hargeysa dibadana waxaa ka mid ah guddiga oo xiray 130 qof oo qabtay cudurka COVID-19 waa xataa taariikhda ay ku beegan tahay 6 bisha 6 ee Juun sanada 2021 guddiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo u xil saaray xaqiijinta xubnaha guddiga doorashooyinka cabashada laga qabo ayaa waxa ay shaaciyeen liiska iyo tirada xubnaha guddigaasi laga saaray guddiga xaqiijinta xubnaha cabashada laga keenay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul gobol ayaa waxay ku dhawaaqeen 34 xubnood oo laga saaray liiska guddiyada doorashooyinka heerkooda kala duwan kuwaas oo kamid ah 67 ruux oo la soo eedeeyay guddiga ayaa sheegay in 34 xubnood ay saameeyeen eedeymaha ay u soo jeediyeen dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya oo kala ahaa inay ka mid yihiin ciidamada dawladda shaqaalaha dawladda iyo taageerayaasha qaar ee madaxweynaha waqtigiisa soo dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya oo afhayeen u ah guddigan ayaa sharaxaya 34 xubnood ee laga saaray guddiga doorashooyinka iyo maamulada ay ka kala tirsan yihiin kala saaristii iyo kala hubintii cadaymihii xubnihii 67 ahaa 34 xubnood oo kamid ah 67 xubnood ee la soo eedeeyay ayaa guddigu waxay u arkeen in aysan buuxinin shuruudihii ay ahayd in uu lahaado qofka ka mid noqonaya guddiyada maamulka ee heer federaal qaarkoodna ay ku lifaaqnaayeen heshiiskii 17 September kuwa kalena uu amray ra'iisul wasaaruhu isagoo ka fakaraya hufnaanta muxuu ahaa ay u baahan tahay doorashada iyo in ay noqoto mid dhammaan dhinacyadu ay ku wada muxuu ahaa qanacsan yihiin 34 xubnood waxay kala ahaayeen 12 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee FIT 3 xubnood oo ah guddiga xalinta khilaafaadka 7 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dawlad goboleed ee Soomaaliland 5 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dawlad goboleed ee Galmudug 3 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dawlad goboleed ee Koonfur Galbeed 2 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka dawlad goboleedka Hirshabeelle 5 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka beelaha Banaadiriga iyo 1 xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dawlad goboleedka Puntland waxa sidoo kale jira in dawlad goboleedka Jubbaland ay soo bedeleen xubno qaarkood ay geeriyoodeen iyo kuwo laga qabay tabashooyin la xiriira hufnaantooda sidoo kale dawlad goboleedka Puntland ayaa la noqotay xubin iyadana laga qabay cabasho ama la soo jeediyay in aanay buuxin shuruudihii loo baahnaa waxa kaloo jira 3 xubnood oo ka tirsan guddiga doorashooyinka heer dawlad goboleed ee Soomaaliland oo iyagana ay ka jiraan tabashooyin waxaana inagoo raacayna heshiiskii 27 May magaalada Muqdisho lagu saxiixay aan u gudbinay ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare in ay tashi ka yeeshaan arintaas sidii maaragtay muxuu ahaa ay u xalin lahaayeen wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Xaaji oo ah gudoomiyaha guddiga xaqiijinta xubnaha cabashada laga keenay ee guddida doorashooyinka ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in xubnaha la saaray ay ku celiyeen maamulada laga soo magacaabay isla markaana ay doonayaan in xubnahan lagu soo bedelo muddo 48 saacadood gudahood bisaddexdeedii ilaa maanta ayaan aad uga shaqaynay dadaal iyo juhdi dheeraad ah ayaan raadinaynay cabashada laga qabo inay tahay mid sax ah iyo mid aan waxba ka jirin guddiga dadaalkiisii waxaa u soo gashay ilaa 34 xubnood in cabashooyinka laga qabay waxuu ka saameeyeen 34 xubnoodna waxaan u kala dirnay maamul goboleedyadii soo magacaabay iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo qayb ka mid ah laga soo magacaabay hawshaas waxa weeye maanta ayaa soo gabagabeynay waxaan sugaynaa waxa weeye in maamul goboleedyada ay soo magacaabaan dadkii loo diray xafiiska ra'iisul wasaarahana laga magacaabo muddo 48 saacadooda kadibna ay soo xaroodaan tababarna loo sameeyo
kadibna doorashada la aado. golaha midowga musharaxiinta ayaa bishii la soo dhaafay waxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble u gudbiyeen 67 xubnood oo ka mid ah guddiga doorashooyinka kuwaas oo lagu eedeeyay inay ka kala tirsan yihiin ciidamada NISA, shaqaalaha dawladda iyo taageerayaasha madaxweyne Farmaajo. dawladda Kenya ayaa waxa ay faahfaahin ka bixisay howlgal ciidamadeedu ay ka sameeyeen gudaha dalka Kenya kuwaas oo ay sheegeen inay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. dawladda Kenya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay iskorimaad kooban oo keenta Pony ee ismaamulka Lamu ku dhex maray ciidamadeeda ammaanka iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. waxaana ay Kenya sheegatay in laba dagaalyahan ay halkaasi ku qaarijiyeen ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa si gaar ahaaneed u tababaran oo booliiska ka tirsan halka hub ay ka soo furteen. gudoomiyaha dhinaca ammaanka ee ismaamulka Lamu Wirangu Macharia oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in ciidamadan ay ahaayeen kuwa khaas ah isla markaana howlgalka si taxadar leh loo qaaday laguna guuleystay in kooxdaasi la soo afjaro. sidoo kale gudoomiye Macharia ayaa warbaahinta u xaqiijiyay inay sii socon doonaan howlgallada noocan oo kale ah oo Al-Shabaab looga sifeynayo Pony oo ah keen aad u weyn oo ku dhow xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya dhinaca ismaamulka xeebta ee Lamu. waxaana sidoo kale shacabka Kenyaanka uu ka codsaday inay ku soo wargeliyaan laamaha ammaanka qof kasta oo ay u arkaan in ammaanka dalka uu xasiloonida diidan yahay isla markaana uu doonayo in qalqal la geliyo guud ahaanba ammaanka. tan iyo horaantii 2020 oo Al-Shabaab ay dagaal dhowr jiho ah ku galeen xerada Mandabay oo ay ciidamo Mareykan fariisimo ku leeyihiin. waxaa dawladda Kenya ay xoojisay weeraradeeda ka dhanka ah kooxdan ku dhuumaalaysanaysa keyntan Pony ee saaran xadka Soomaaliya iyo Kenya, iyadoona dawladdu ay weli ugu baaqayso shacabka inay ku soo wargeliyaan dadka ay uga shakiyaan in Al-Shabaab ay ka tirsan yihiin oo halkaasi lagu arko. taliska ciidanka AMISOM ayaa waxa ay sheegeen in ay baarayaan duqeymo diyaaradaha dawladda Kenya ay ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa lagu sheegay in AMISOM iyadoo ka jawaabaysa bayaankii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya 4 bishan ay bilowday baaritaanka duqeymihii ciidanka Kenya ay ka geysteen gobolka Gado. howlgalka ayaa hadda ku howlan aruurinta macluumaadka ku saabsan shilka la soo sheegay waxaana si dhow ula shaqeyn doonaa dawladda federaalka Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo dhammaan daneeyaasha kale ay khusayso. inta aan baarayno arrintan ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay AMISOM. sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in AMISOM ay waajib ku tahay in saab ismile uga filiso howlaheeda loo igmaday Soomaaliya si waafaqsan asluubta iyadoo la raacayo dhammaan sharciyada caalamiga ee quseeya howlgalka. sida darteed waxaa ka go'an in ay baaraan dhammaan eedeymaha ku saabsan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ka dhanka ah ee loo geysto rayidka. AMISOM waxay si buuxda u baaraysaa dhacdada la sheegay, wixii ka soo baxana waxaa lala wadaagi doonaa dhammaan daneeyaasha ay qusayso, ayaa lagu soo gabagabiyay qoraalka ka soo baxay AMISOM. maalin ka hor 4 Juun war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda Soomaaliya ayaa si adag loogu cambaariyay duqeymaha diyaaradaha dagaalka Kenya ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Gado. ugu yaraan geerida 1 qof iyo sidoo kale dhaawacyada 5 qof oo kale ayaa la soo wariyay inay ka dhasheen duqeymaha gobolka Gado ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka dawladda Kenya. ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ayaa waxa ay ku guuleysteen kala qaadida maleeshiya beeleed ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Axmed Aaba ma santahay ciidamada ka tirsan kuwa amaanka dawladda federaalka iyo kuwa Galmudug xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug ayaa ku baxay aaga oo ka dhacay dagaal u dhexeeya maleeshiya beeleed dadka deegaanka isla markaasna ku yaala gobolka Galgaduud. dagaal dagaalkan u dhacay deegaan waxba gaabo leh qoyaastii gobolka Mudug ka tirsan oo Galgaduud ka tirsan isla markaasna magaalada Cadaadud qiyaastii 1 kiiloomitir dhanka qoraxsimeed ama dhanka bari ugu beegan. ciidamadan ka tirsan dawladda federaalka iyo Galmudug iyo maamulka baarlamaanka Galmudug ka tirsan ayaa halka mid kala qaada waxaa lagu kuleystay in la kala qado milashadka halkan ku daray. waxaa lagu burinayaa baraagii iyo sidoo kale goobaha ay ka bilowdeen dagaalka u dhexeeya milashada dadka deegaanka. markaasna waxa hadda la wada waawaan ku aadan halka la soo keeno milashada dagaalamaya isla markaasna
lagu haashiyo ama kulanka ugu horeeya uu dhexmaro saraakiisha ciidamada iyo xubnaha baarlamaanka galmudug ka tirsanay halkan yimaada waxay ballan qaadeen in aagan uu noqon doono meel ka caagan dagaalbeeleed ciidamada ammaanka dowladda federaalka ku galmudug halkan ku sugan ayay sheegeen ammaanka lagu wareejin doono kulmadii fasiinaad oo gobolada u dhexeeya hay'adaha sheegeen halkan ay ka bilaaban doonaan isla markaasna looga hadlayo xaaladda ammaan ee deegaankan iyo sidii loo dhamayn lahaa dagaalbeeleedka u dhexeeya dadka deegaanka ee halkan maalmaha lasoo dhaafay ka taagnaa baarlamaanka galmudug iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka halkan ku sugan sheegeen in tirada jihaadan dagaal ka dhacay isla markaasna hadda waxa ka dambeeya ciidamada ammaanka dowladda federaalka ku galmudug ku sugan ammaanka ay soo doonaan isla markaasna ay ka shaqeynayaan sidii loo wada lahaa halkan wixii ka dhacana miiska waa loo wada lahaa tirada jeer ayay isku dayeen madaxweyne xal laga gaaro dagaalbeeleedka tirada jeer halkan ka dhacay madaxkiisa waa lagu guuldareystay sida muuqanayso waxa ugu bilow dagaalkan uu ka dhacay oo ka bilaabanaya tahay dhulka qiimeed iyo sidoo kale deegaansi baraaga halkan laga sameeyay taasoo markaas soo celisay dagaalbeeleedka u dhexeeya dadka deegaanka guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa waxa ay shaaciyeen natiijada doorashadii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee ka dhacday degmada Hargeysa goordambe oo xalay ahayd ayaa waxa la shaaciyay natiijada doorashada ee gobolka Maroodijeex ee Somaliland kaas oo si weyn loo dhooriyay maadaama uu ahaa gobolkii ugu dambeeyay ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee Somaliland gobolkan ee Somaliland Maroodijeex ay ugu magac dareen ayaa golihiisa wakiilada uu ka kooban yahay 20 xubnood xisbiga kulmiye ayaa 20 kaasi ka helay 8 kursi xisbiga wadani ayaa helay 7 kursi halka uu cidna uu helay 5 kursi xubnaha caanka ah ee ku guuleystay kuraastan ayaa waxa kamid ah Barqad Jaamac Xirsi oo ku magac dheer Batuun oo xisbiga wadani ka tirsan iyo Xasan Saleebaan Dhuxul Laab Saalax oo ah abwaan caan ah kana tirsan xisbiga kulmiye sida uu shaaciyay gudoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka Maroodijeex Yaasiin Cabdi Cismaan xisbiga u horeeyo ucid xisbigaas wadarta codadka gobolka uga codeeyay waxa weeye 46390 cod waxana uu ku guuleystay ama uu soo baxay 5 mudane oo kala ah Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax Maxamed Khadar Daahir Moogi Maxamed Jaamac Ismaaciil Koodbuur Maxamed Ismaan Maxamed Xasan Saciid Maxamuud shanta mudane haddii aan inta ku dhaafo xisbiga ku xigay kulmiye wadarta guud ee codadka waxa weeye 10517 cod kuwaasoo u suurtageliyay inay ku guuleystaan 8 mudane oo kala ah Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Cabdi Muuse Cige Cabdikariin Maxamed Maxamed Yaxya Cabdilaahi Amiin Ismaaciil Xasan Saleemaan Dhuxul Maxamed Xuseen Jaamac Rambo Axmed Yuusuf Nuur Guruuje Cabdilaahi Sheekh Maxamed Axmed xisbiga wadani isagana wadarta codadka ama wadarta guud ee codadkeeda haysta waxa weeye 99320 cod kuwaasoo gooyay ama u sababay inay soo baxaan mudanayaashan aynu yeelin doonaa tiradooda waa 7 mudane waxa ay noqonayaan Barkhad Jaamac Xirsi Batuun Axmed Dayib Aadan Guuleed Saciid Maxamed Ismaaciil Diiriye Jamaal Aadan Diiriye Ciise Injineer Axmed Cabdi Ibrahim Cige Xuseen Ismaaciil Jaamac Xirsi Ibrahim Maxamed Jaamac 7 xubnood ama 7 mudane ee ku guuleystay xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa golaha wakiilada ee Somaliland oo ka kooban 82 xubnood ka helay 31 kursi halka kulmiyana uu ka helay 30 kursi sidoo kalena ucid uu helay 22 kursi taliska booliska gobolka Bay ayaa waxa ay sheegeen in falalka amni darrada ah ee ka dhaca magaalada Baydhabo ay sababtay wada shaqeyn la'aanta ka dhex jirta booliska iyo shacabka magaaladaasi kulanka intuu socday saraakiishu ay bulshada u soo bandhigeen falalkii amni darro ee ka dhacay deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo taasoo taliyaha ciidamada booliska qaybta gobolka Bay Aamin Madaruur sheegay in ay sabab u leedahay falalka amni darro ku soo laabanaya magaalada Baydhabo wada shaqeyn la'aanta bulshada iyo laamaha ammaanka koonfur galbeed isagoo ka dalbaday bulshada in ay booliska ay la shaqeeyaan magaalada Baydhabo bidiyalkan walaal shirkuun isku kooy way baa bidiyalkan dhacdooyinkaas dheel horta wal walba dhiyaan meeloobi ka dhiyaan laakiin way bajare wada shaqeyn la hoob wada shaqeyn jarafan
ma dhiifaan walaan wata dhiyeen may ba daliila magaaladan tan khalqee bulshada ayaa ku nool ciidamada booliiska wal gaaban wal yaro way ba la shaqeeyaan la faday ciidamada booliiska anti shacabka baydhow la shaqeeyaan haddii shacabka la shaqeeyay shirida aan muqaawada kor shakhsiga wal halay anti la shakhsiga wal halay oo hoob la sheeg meega ku badbaadiyaan way badbaadiyaan si boqol qof shan boqol laakiin madii wala dhanka argaas ma sheegaas hadii daba meelata dar koosay naga qabi koosay hay jiiru afbay waranti walaan dhiin ha sheeg anti dhibaatadaas aan dhiin ha sheega markii aad dawda isbitaalka la rooro fadi madii wala dhiin meelay aadaya ka jarti awoodaya ka jarti aftiga ka jari waan idaha ku kaaylan kaasay madis meelo ku koy idaha ka digay iduusa ka digaw ma sabadaba ka digay ida la qariyay idil la qariyay antan tafari kamid ahay ayaan intani la jiraan ama booliiska nagtay ama shacabka nagday aan way asday dadka shacabka baydhow ku nool khaasatan reer baydhow way faday meelays intii la wada shaqeey gudoomiye xaafadii ayaa jiraan laami jiraan waahijan kulankan ay booliska la qaateen shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa imaanaya kadib markii mudooyinkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo ay ka dhacayeen qaraxyo lala beegsanayay goobaha bulshada isugu yimaadaan kuwaas oo dhibaato ka soo gaareysay bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo. lama amaanka Sacuudi Carabiya ayaa xiray 130 qof oo la sheegay in ay baal mareen tallaabooyinka xakamaynta cudurka COVID-19 iyo in la karantiilo maadaama laga helay cudurkaasi. wakaalada wararka waas waxa ay sheegaysaa in 53 qof lagu xiray magaalada barakeysan ee Madiina al-Munawwara halka 54 kalena lagu xiray gobolka Jaasa ee Waajasan ee dhaca xadka dhinaca waqooyi 18 qof oo kale ayaa waxa lagu xiray magaalada ama deegaanka Tabuk. ugu dambeyntiina saraakiisha badbaadada rayidka ah ee Mexico ayaa waxa ay sheegeen in hal qof uu dhintay 6 kalena la laayahay kadib markii uu ku dumay god ay ka qodayeen dhuxusha. saraakiishu waxa ay sheegeen in la rumaysan yahay in arintaasi ay sabab u noqotay daadad xoogan oo ku dhuftay wadankaasi. wali waxa socda baade goobka shaqaalahaasi dhuxusha qoda sida ay tilmaamtay wasaaradda shaqada ee dalkaasi. ku maasantiin la socoshada wararkeena